cisbitaalka daryeel oo kamid ah cisbitaalada ugu waaweyn degmada Xudun ee gobolka Sool oo muddooyinka u dambeeyay joojiyo shaqooyin ku hayay bulshada ayaa dib maanta xalfad loogu qabtay si loo furo cisbitaalkaasi waxaana iska kaashaday qaybo kamid ah dhalinyarada degmada Xudun waxaana dib u bilaabeen adeegyada caafimaadka munaasabada xalfadda oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta degmada qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wasaaradda caafimaadka ugu baaqay inay degdeg wax uga qabato ugu horreyn waxa halka ka hadlay isduwaha cisbitaalkaasi Mursal Saalax Dubad أنا كهذا يافك السبتالك أنا قدامي السبتالك waxaan rabaa inaan warbixin ka siiyo dhammaan dadweynaha iyo dadka reer Xudunba isbitaalku inuu daawo xidhnaa duruufo jira awoodood buu xidhnaa sidaa darteed haddana waxaan dareennay inuu yahay wax laga maarmaan ah oo muhiim ah oo baahiyaha asaasiga ah ee dadku ku noolaayeen bulshadu inuu yahay sidaa darteed waxaan noqday laga maarmaan bay noqotay in isbitaalka dib loo furo anagu ka dhalinyaro ahaan iyo ka caafimaad ahaan waxaan ku dadaalay in isbitaalkaas dib loo furo si ay magaaladu u hesho goob caafimaad oo u shaqaysa dadka dadaal dheer waxaan ku guulaysanay in isbitaalka dib u furno isbitaalku baahiyo fara badan baa ka jira intan qura maaha intana waa dhiig joojin uun baan u sii furnay wuxuu meesha ku shaqeynaya isbitaalku waad aragtaan waa guri aad u yar wuxuu u baahan yahay meel inta ka weyn qalab uu baahan yahay sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dhammaan maamulka degmada iyo dhammaan dadweynaha degmada iyo qurba joogta in isbitaalka la garab istaago oo wixii horumar ah isbitaalku u baahan yahay laga garab istaago dhammaan madaxda iyo dadweynaha sharafta leh Xudun ee ka soo qayb galay xafladan furitaanka dhakhtarkii qalliinka degmada ka xidhnaa sida waqtiga kooban inaga xidhnaa aynu furayno maanta xafladiisii dib loo furayo aad iyo aad baan idin salaamayaa salaanta islaamka idinku salaamay salaanka bacdi maanta waxa farxad weyn ii ah anigoo jooga degmada Xudun kana mid ah qurba joogta degmada xafladan aanu ku furayno maanta ku daafurayno ee lagu furayo mar labaad dib loogu soo celinayo dhakhtarkii weynaa ee degmadu lahayd ee qalliinka dhakhtarkaas oo cilado farsamo muddo kooban u xidhnaa aad iyo aad bay igu tahay farxad weyn waxaan ogeysiinaynaa dhammaan jaaliyadaha dibadda iyo dadweynaha degmada Xudun iyo dhulka ay xukuntoba ee dhakhtarkan markii hore maqlay in la xidhay in dhakhtarkii maanta la furay oo sidiisii u shaqeynaya caadiga ah isagoo hawlihiisa oo dhan u dhan yihiin sidaasaan wada ogeysiinaynaa aad bay u mahadsan yihiin dhalinyarada caafimaadka ee dhakhtarka furtay ee markii horena gacanta ku haysay haddana hawlihiisa dib u soo dhamaystirtay waana wax ilaahay loogu mahadnaqo magaaladuna ay u baahnayd arrintaas ilaahay waa mahad iyo shukri ku leh waxaana الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa daryeel oo la furay maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin magaaladu waa magaalo weyn oo dhakhtar qalliin ma aanay lahayn waxaanu dadweynaha ama dadka ay khusayso hawshanu ee khayrka jecel aanu ka codsanaynaa in de meeshu waad aragtaan guriga cusbitaalku yahay waa guri yar in xarun cusbitaal oo fiican oo weyn degmada looga dhiso waa degmo aad u ballaaran oo deegaan ballaaran inuu ku xeeran yahay insha Allah kullay anigu hadii lahayd ma waxaan rabaa maayarka iyo maayar ku xigeenka iyo maamulka degmada inaan dhul ku wareejiyo dhow oo waliba Masjidul Huda ku dhow oo aan rabo inaan u waqfno cusbitaal insha Allah waliba dhul aad u badana oo magaalada dhexdiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa dhalinyarada isxilqaantay aan awoodda badan hayn laakiin tabartoodii isu geeyay in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلامك بعدي waxaan isugu nimi saaka xafladii isbitaalkii daryeel oo dib loo furay oo ayaamo tirsan hakadnaga yimi alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh saaka waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa de Soomaalidu waxay ku mahmaadaa far kaliya fool ma dhaqdo dhalinyaro is abaabushay baa isbitaalka dib u kacsay
waxaa loo baahan yahay bulshada meel kastuu joogo ama dibad ha jiro iyo qurbo ama dalka ha joogo ama meel kastaba ha jooge in cusbitaalkii la isgarab taago haddii cusbitaalkuna aad iyo aad buu qaybta qalliinka iyo oo dee soonahan xudun loogu baahan yahay waad ogtiino weligeed in baabuur la saarnaaday ahaan jirtay marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan leenahay cusbitaalka la isgarab taago assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dumarka duqayda waa dhakhtarka keliya haddii wax dhacaan aanu kula orodno dadka qurba joogta ee deegaanka xudun u dhashay waxaan leeyahay dalkiinna wax ka qabsada oo dadkiinna wax tara oo dadkiinna wax ku beeriya ayaan leeyahay dhakhtar durugsan daal baa lagu dakaamaaye dhakhtar durugsan gabaygu horey ima bilaabnayna haddaa bilaabayahay dhakhtar durugsan daal baa lagu dakaamaaye dawa yuruba daryeel baa kuu haya oo dariska weeyaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هرت ومالين وين مانتا ومالين فرحة السبتال كي دريال مدة نجح حنا باهي الدقمة كفر جرين شري أيا دقول وفري هو أصاي فرين دلينرتي هرين وشقين شرتي ستاف كهاد السبتال كا كنتي وان بقادينيا وواحد لقوم هالنقو يرجلين بين مدنيه دقمة حدنا وحنكو عسنيا دخاتير تكهل جلدون دونتا السبتال كان إني سود ويان oo ay la shaqeeyaan oo ay garab istaagaan anigoo afka wasaaradda horumarinta caafimaadka ku hadlayaan waxaan halkan wasaaradda uga dirayaa dardaaran ah degmadu wax isbitaalo male isbitaalkaasaa u shaqeeya inay la shaqeeyaan hadday dawo tahay hadday agab tahay iyo haddii baahiyihii kaloo caafimaadka tahay muddada magaaladu isbitaal guud helayso isagaa noo isbitaala isagaa noo shaqeeya isagaa baahidii degmada wax ka qabta hadda runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa dhallinyarta furtay cusbitaalka saako ay bishu tahay 13 bishii 9aad 2022 waxaanu halkan ka daahfuraynaa cusbitaalkii daryeel oo muddo yaroo kooban inaan ka xidhnaa marka hore ilaahay baa mahad leh mahadda labaadna waxaa leh bahda caafimaadka ee garatay in ay cusbitaalkii daryeel dib u furto aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa meesha ka dhiman waxaa naga dhiman xaggii caafimaadka xaruntii caafimaadku aad bay nooga dhiman tahay dadka qurbo joogtu iyaga ayaa dee dhaqaalaha runtii dalka waad ogtihiin wax laala wax yaallaa ma jiraan laakiin waa la kabi karaa haddii idinku aad xil qaadaan oo aad istiraahdaan dadkiina wuxuu qabta waa dadka gudaha joogana waa idin kabayaaye war xiliyaha duubtoo waxaad isku daydaan degmada inaad u dhistaan xarun caafimaad ilaahasun baan ku soo gebagabaynayaa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhallinyarada garatay inay dadkoodii wax u qabtaan caafimaadka uga shaqeeyaan aad baan uga mahad celinayaa waxaa lay sheegaya xalayto kiis halkan la keenay oo ay ku gaadheen 4 habeenimo waana ku guulaysteen wixii kalena ilaahay haydinla garab galo baanu leenahay waa dadaalka hortii weeye qofka laascanood baa loo qaadi lahaa haddaanay xalay iyagu joogin dee laascanood baa loo qaadi lahaa iyagii baa ku guulaystay waana ilaah baana mahaddaale iyagana waa u mahad celinaya inaasaan ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed maxamuud cawil kawte kah news degmada xudun ee gobolka sool